Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkayagu idiin soo gaaraya rabadaan wanaagsan halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg. Saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah beesha caalamka oo rooble ku eedeysay carqaladeynta doorashada iyagoo taageero u muujiyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigale sidoo kalena amray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabelle inay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gabagabeeyaan doorashada dalka. xildhibaanada laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed oo kulan gaar ah yeelanaya madaxweynaha Somaliland oo safiirka Sweden kala hadlay dhibaatadii suuqii Hargeysa. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadaynu ugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raalli ka noqdo. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like-na inagu dhiirigelisaan gambaleelka furitaan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle. saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ku eedeysay carqaladeynta doorashada iyagoo taageero u muujiyey hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigale sidoo kalena amar siiyey labada hogaamiye Jubbaland iyo Hirshabelle waa Cali Guudlaawe iyo Axmed Madoobe. saaxiibayaal sidoo kale beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxay u sheegeen inuu kasoo bixi waayay kaalintiisa hogaamineed ee doorashada isagoo sidoo kale ku guuldaraysay in uu doorasho gaarsiiyo dalka. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo saaray qoraal cusub oo ay ku saabsan dhamaystirka doorashada Soomaaliya taasoo muujinaysa inay faraha la soo galeen doorashada Soomaaliya maadaama ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu dhaqaajin waayay geedii socodka dalkeenana dhaafsiin waayay isgoyskan halista badan isaga oo doonaya inuu macaash fara badan ka sameeyo muddada uu xafiiska joogo. marba marka ka dambaysa waxa uu isku dayayaa inuu xafiiska joogistiisa sii dheeraysto isagoo markastaba abuuraya jawi siyaasadeed iyo kiisas cusub oo si looga baaqsado ay adag tahay. sidoo kale saaxiibayaal warar hoose aanu helnay ayaa tilmaamaya in markii hore ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble laga diiday in ay la kulmaan beesha caalamka balse codsi u gudbiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayuu ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kula kulmay beesha caalamka iyagoo sheegay in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uusan awood u lahayn in uu dalka gaarsiiyo doorasho wada ogol lagu yahay isu tanaasulna ku dhisan. beesha caalamka ayaa ka aamusi weyday dhibaatada iyo hawsha uu wado ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxa uu kala saari waayay qaranka iyo qabiilka waxa uu hoosta soo gashtay ragga isaga ay isku haybta yihiin isagoo banaanka isaga saaray qof kasta oo huwan magaca qaranka Soomaaliyeed. saaxiibayaal dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo kaliya oo aan weli soo dhameystirin geedi socodka doorashada golaha shacabka waxaan ku boorinaynaa ayay dhaheen beesha caalamka inay sidaasi sameeyaan oo aysan jirin dib u dhac isla markaana mudnaanta siiyaan wadahadalka iyo wada tashiga lagama maarmaanka u ah soo gabagabeynta qabanqaabada doorashada ee gaar ahaan isu socodka Jubbaland si loo hubiyo in beelaha ay khusayso matalaad ku yeeshaan baarlamaanka soo socda. iyadoo oo arintaasi jidho ayuu ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxa uu doonayay in kuraasta gobolka Gade 16 ah laga tago midaas oo beesha caalamka lagu wargeliyay in qaar kamid ah kuraasta uu rabo in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ka tago balse faragelinta ay soo sameysay beesha caalamka ayaa irdaha ka soo xidhay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble. sidoo kale saaxiibayaal fariintan ayaa si toos ah waxay ugu socotay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe inuu doorashada ka wareejiyo Garbahare isagoo geynaya ceel waaq sidoo kalena kaashanaya ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo dowladda Kenya. balse bayaankan ka soo baxay beesha caalamka ayaa isna sidoo kale wajigabax ku noqday maadaama beesha caalamku ay sheegtay in qof kasta ama qabiil kastaba matalaadiisa uu ku yeelanayo baarlamaanka ayna khasab tahay in baarlamaanka uu iska dhex arko qabiil kasta. bayaankan ka soo baxay beesha caalamka ayaa rubada ku dhuftay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo doonayay inuu siyaasadeeyo 16 kursi ee taalaha gobolka Gado. sidoo kale beesha caalamka ayaa gudiyada
fiid iyo siid ee maamul goboleedka Jubbaland iyo weliba kuwa federaalka oo hoosta ku wato ra-iisul wasaaraha xilgaarsiisa Maxamed Xuseen Rooble waxay amar ku siiyeen in 14 bisha Abriil ay kusoo gabagabeeyaan doorashada iyo howlaheeda inta ugu adag amaba ugu culus. waa tijaabo kale oo lagu tijaabinayo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiisa Maxamed Xuseen Rooble haddii uu kasoo bixi waayana waxa ay beesha caalamka madaxweynaha ka codsan doonaan in uu keeno ra-iisul wasaare kale kaasi oo dhabaha iyo isgoyskan adag ka samata bixin kara dalkeena. sidoo kale saaxiibayaal bayaankan ayaa waxaa lagu amray mucaaradka in ay faraha kala baxaan geedi socodka dalka. sidoo kalena ra-iisul wasaaraha xilgaarsiisa Maxamed Xuseen Rooble waxaa lagu amray in uu ka shaqeeyo si dalkani uga dhici lahayd doorasho wada ogol lagu yahay. haddii aysan taasi dhicinna ay dhibaato ku noqon doonto dhammaan dhinacyada siyaasadda marka laga reebo madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu doorashada banaanka ka joogo. sidoo kale saaxiibayaal beesha caalamka ayaa tiri waxaa muhiim ah in qabanqaabada marxaladda ugu dambaysa ee geedi socodka doorashada ay taageero xoogan ka hesho dhinacyada siyaasadda ayna ka dhalato natiijo ay dhammaan aqbalsan yihiin in ay tahay mid sharci ah. waxaa madaxda Soomaaliyeed markaasi kadib ay wax ka qaban karaan arrimaha kale ee mudnaanta ku leh qaranka sida ka jawaabidda abaaraha iyo dhismaha amniga iyo barwaaqa ku dabaalidda Soomaaliya sanadaha soo socda. waxay kaloo saaxiibayaal niyad jab ka muujiyeen qoondada haweenka ee 30% iyagoo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiisa Maxamed Xuseen Rooble ku eedeeyay in uu qayb ka yahay in dumarku aysan helin qoondadii loogu talagalay maadaama uu xallin waayay boobka ka socda doorashada dalka isagoo ku mashquulay dhaca hantida shacabka Soomaaliyeed. saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha xilgaarsiisa Maxamed Xuseen Rooble ayaa wajahaya eedeymo culus oo kaga imaanaya dhammaan wadamada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya isagoo oo ku mashquulay howlihiisa gaarka kana mashquulay doorashada dalka oo loo igmaday. waxaa xusid mudan in uu markii hore ku doodayay in amniga guud ee dalka lagu soo wareejiyo balse sidee macquul ku noqonaysaa shaqsi xakimeyn waaye doorashada in lagu wareejiyo amniga guud ee dalkeena. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed oo kulan gaar ah yeelanaya. waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay kulan gaar ah ku yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. xildhibaanadan oo qaarkood maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kadib markii uu shir isugu yeeray hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen. xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed oo kamid ah xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in shirkaasi ay kaga arisan doonaan arrimaha xasaasiga ah ee ka taagan dalka iyo carqaladeynta uu sheegay in si joogto ah loogu hayo doorashooyinka dalka. hadalkaasi ayaa u muuqday in uu ku waday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiisa Maxamed Xuseen Rooble iyo kooxdiisa guddiga doorashada. sidoo kale waxa uu sheegay in shirkani ay kaga hadli doonaan masiirka deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii looga hortagi lahaa kuwa diidan horumarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla markaana shirkooda ay warmurtiyeed ka soo saari doonaan. xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed ee dooran ayaa weli qaadan shahaadada xildhibaannimo kuwa oo diidan sababo la xiriira kuraas ka mid ah kuwa laga soo doortay deegaanada maamulkaasi oo la hakiyay. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safiirka Sweden kala hadlay dhibaatada suuqii Hargeysa ee dabku ka kacay dhawaan. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Sweden oo Hargeysa u tagay inuu shacabka Soomaaliland la qaybsado tacsida sida uu sheegay iyo tiraanyada ka soo gaartay musiibadii ka dhalatay dabkii suuqi Waaheen. safiirka ayaa sheegay in ay ka xun yihiin ka dowlad ahaan iyo shacab ahaan dhibaatadii soo gaartay suuqi Waaheen iyo ganacsigii weynaa ee Soomaaliland lafdhabarta uu ahaa uguna ballaarna isagoo oo ballan qaaday inay dhankooda diyaar u yihiin inay ka caawiyaan wixii taageero dhaqaale arrintaasi ka geysan karaan isagoo wakiilka dowladda Sweden. waxaa kale oo xusay inay dhawaan isugu imaanayaan shir degdeg ah oo lagu qaban doono Nairobi kana soo qaybgali doonaan dalalka isugu bahaystay midowga Yurub. shirkaasi oo ay kaga arisanayaan sidii gacan dhaqaale
oo looga geysan lahaa musiibada suuqi weynaa ee waahayn ka dhacday. Madaxweynaha Somaliland dhinaciisa waxa uu uga mahad celiyay safiirka Yabooha iyo garab istaaga ay ugu ballan qaadeen shacbiga Somaliland in ay ka taageerayaan musiibadii dab ku geysay ee ka cayroobeen boqolaal reer Somaliland iyo sidoo kale waxa uu madaxweynuhu warbixin ka siiyay baaxadda dhibaatada dabku inta ay leegtahay iyo baaxadda dhaqaale burbur ee u geysay bulshada suuqaasi ku ganacsan jirtay. Waa hagaag saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.